السلام عليكم أصحابتي دقالقة أهواني السلامي ميل كستو أدونك كجوكتان ودقالقة أو مركو هوري وحاني دايهاي ومهدسنتهين سا channel كيغ ugu xirantihiin ayaan ugu mahadsantihiin daabashadiina qaaliga ah iyo sida ay la socotiin aad baan iga mahad celinayaa marka labaad waxaan rabaa inaan iga faa'iideeyo keeg yar oo macaan badan bacd afurna afka aad ku macaansan kartiin iidana way soo dhowdahay soomaa insha allah ilmihiinana u samaysan kartiin marka keega maanta waxaa weeyaan coconut ayaan dusha uga shubi doonaa insha allah waxaan u baahannahay ayaan rabaa inaan ii sheego ila daawada koob iyo bar oo bur ah hal koob oo sokor ah 3 qaado oo batar ah 4 xabo ukun ah caano waa 100 ml saad u aragtiin iyo hal baako oo ama hal xirmo oo baking powder ah intaas ayaan u baahannahay keega markaan sameynayno kan aan u baahannahay dusha inaan ka saarnana waxaa weeyaan coconutkaas iyo syrupkaas ayaan u baahnaan doonaa hadhow keega markuu noo koro inaan dusha aan ka saarano insha allah ila daawadaasaan u sameyn doona walaalahayga qaaliga ah asxaabta sokorta ayaan ku bilaabayaa batarkaan ku xijinayaa intaasaan isku qasayaa marka hore ukunta ayaan ku shubayaa burka ayaan ku shubayaa baking powder caanaha ayaan ku shubayaa asxaabtayda saas ayuu diyaar ku yahay kan foornada ayaan ku shubanaynaa asxaabi kan foornada ayaan ku shubanaynaa asxaabi saas ayuu diyaar noogu yahay waxaan gashanaynaa foornada 180 35 ilaa 40 daqiiqo saamar kastana ii sheego adiga foornadaada ay ku xiran tahay hadduu dabka kaa dafaayo iska ilaali markuu noo soo karo kadib ayaan waxaa kale on ku sameynaya ayaana ila wadaagi doonaa insha allah asxaabay saad u aragtiin keegan wuu noo karay maasha allah marka waxaan sameynaynaa wuu karay samaarti wuu galayaa waana dry marka waxaan sameynaynaa qumbihii ayaan kor kaga shubaynaa quligii yaraa aan ku haystay qumbaha ayaan ku shubtay halkaas kadib waxaan ku shubanaynaa syrupkii aan ii sheegayo marka hore uu noo karo keega ayaan i tusinayaa saan rabo inaan u sameeyo insha allah ila socdo korka ayaa saa ugu salaaxaysaa le waad aragtiin qumbihii aan isku qasanno ayaan korka kaga shubanay marka waxaan sameynayaa foornada mar labaad ku celinaya waayo waxaan rabaa kastoo yar inuu iisoo noqdaan rabaa marka ovenka ku celinaya 3 ilaa 4 daqiiqo ayaan ku haynayaa kadibna waan isku soo laabanaynaa
asxaabay ovenkan kasoo bixiyay maasha allah sida quruxda badnaa aarabu ii soo noqday saxan ayaan soo saaraya kadib waan isku soo noqonaynaa yaa asxaabtayda qaaliga ah waad u jeedin sida quruxda badan ayuu kusoo baxay asxaabtayda qaaliga aan jeclahay maasha allah maanta keegaas yar ayaa rabay inaan iga faa'iideeyo yaa inkastoo baryahanayta maaragtaa keegihii aan soo gelin jiray kastoo aan ka yaro mashquulay laakiin maanta waxaan asxaabtayda qaaliga maadaama iidda ay soo dhowdahay waxaan yidhahday inamana caadi ma ah aad ayuu u macaan yahay taasaan anigu hubaa insha allah tijaabiya waxaan leeyahay asxaabtayda qaaliga ah maasha allah asxaab badan ayaan ugu soo korodhay waxaan leeyahay kusoo dhawaada minankiina weeyaan yaa qalbi furan gacmo furan kusoo dhawaada ayaan leeyahay asxaabtayda qaaliga ah mar walba heegan ayaan ii ahay waan ii taagan yahay insha allah dalabaadkii waxaa rabtiin insha allah waan ii soo gelinayaa inkastoo marmar qaarkood dee bini aadan baa la hol iska mashquulayo laakiin waxaa ogaatiin ina aan dadaalayo intaan dadaali karo marka asxaabtayda qaaliga waa mahadsantihiin saa channelkayga oo la socotiin aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina meel kastoo adduunka ka joogtiinna waxaan leeyahay caafimaad igu noolaada asxaabtayda qaaliga ah haddaa igu cusub tahay walaashaa baan ahay subscribe-ka hayla agmarin dhacdhac igu sii insha allah like-na hala soo qarxiyo insha allah intaasi video ku xigo waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan jeclahay meel kastoo adduunka joogtaan